السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وضيال هالكني والحرية نيوز وأنا دينكو سو قد بينا ورركي وقدم بيا كدع دولك الصومالي ذي عالمك فيابا حلي كنا تقضى وانتون صان وركين أنا وحقيب كان قنايا دولة الصومالية السعودي وقوة هالله حديد كسو جرين كايا كدحية لبض الضل ففاهنا ديرادا وكسو بحي الدقال جيستي دمشي داوع وكدع قيبكي مدقو الكسناق hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo si adag u beenisay inay fiisaha u diiday macallimiin ajaanib ah oo wax ka dhiga deegaanada maamulka Puntland dawladda Kenya oo loo wareegtay amniga madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Jubbaland qodobadaas iyo kuwa kale oo daasoonaya daawadayaal ku daawan doontaan wararkeena haddii ay tahay aragtida janaalka markii kugu horeysay fadlan subscribe saar like dasiina share gare una gudbi saaxiibadaada noqo qofka ugu horeeya ee la xogaha wararka iyo warbixinada aan soo gudbino isu soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kale sidii hordhaca warkeena aad ku maqlayseenba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu shir gudoomiyay shirka tubta horumarinta dhaqaalaha kaas oo looga hadlayay ajendayaal ay ka mid yihiin geedi socodka barnaamijka dinacafinta Soomaaliya iyo sharciga hay'adaha aan dawliga ahayn ee dalka ka jira ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in xilligan meel wanaagsan ay marayso arrinta dinacafinta Soomaaliya isagoo xusay in dawladda Soomaaliya ay dadaalo xoogan ku bixinayso sidii arrintaasi ay uga midho dhalin lahayd waxa uu tilmaamay ra'iisul wasaaruhu in haddii shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay isu muujiyaan iskarab istaag wanaagsan mar waliba Soomaaliya ay noqon doonto mid deynta si wanaagsan looga cafiyo waxa uu xusay in dhawaan la arki doono Soomaaliya aan caalamku ku lahayn wax deyna wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya Danjira Axmed Ciise Cawad oo ku sugan dalka Sacuudiga ayaa waxa uu magaalada Jidda kula kulmay dhigiisa boqortooyada Sacuudi Carabiya Amir Faisal bin Farhan bin Abdullahi labada wasiir arrimo dibadeed ee Soomaaliya iyo Sacuudigu waxa ay ka wada hadleen dadaalada lagu xoojinayo xiriirka laba geesoodka iyo iskaashiga wadajirka ee dhinacyada oo dhan iyo siyaabaha lagu gaari karo danaha u dhaxeeya Muqdisho iyo Riyaad qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in sidoo kale Sacuudiga iyo Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee danta labada dhinac iyo ahmiyadda ay leedahay sii wadida iyo wada tashiga isku duwista arrimaha guud ee labada dhinac xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudiga ayaa kol hore mugdi soo galay kadib markii dawladda federaalku go'aan dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay khilaafkii wadamada Khaliijka iyo dawladda Qatar balse waayihii dambe waxa muuqanayay isku soo dhawaansho labada dhinac waxaana jiray booqashooyin isdaba joog ah oo madaxda Soomaaliya ay ku tageen boqortooyada Sacuudiga ولدا وضيال قيبها هوري ورركنا هيا داونيسان aragtida janaalkan hadii ay tahay fadlan subscribe saar wararkan ka helayna deegaan ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus kaasi oo u dhaxeeyay Maleeshiya beelad hubeysan oo halkaasi wada dega dagaalkan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo Waqaadiriya oo dhinaca waqooyi bari ka xiga magaalada Ceerigaabe ee xarunta gobolka Sanaag isla markaana waxa ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkan uu ka dambeeyay kadib markii labada maleeshiyo ay isku qabteen dahab iyo macdano kale oo laga qoto buur ku taala deegaanka Waqaadiriya sidoo kale dadka deegaanka ayaa xusay in rasaas xoogan ay isdhaafsadeen ciidamo ka kala tirsan labada maleeshiyo beeleed isla markaana wali deegaanka laga maqlayo rasaas gogosa ugu yaraan 3 ruux oo labada dhinac ah ayaa ku geeriyooday dagaalka halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo soo qaaday dhanka magaalada Ceerigaabe ee gobolka Sanaag ilaa hadda ma jiro wax waraa oo ka soo baxay dhinaca Somaliland oo ku aadan dagaalkaasi ka dhacay deegaanka Waqaadiriya ee gobolka Sanaag ciidamada booliiska Somaliland ee ku sugan deegaankaasi ayaa muddo kadib ku baxay dagaalka iyadoona hadda la soo sheegay in xaaladda deegaanka Waqaadiriya ay tahay mid aad u degan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa si kulul u beenisay warar shalay ilaa maanta laga hadlayay baraha bulshada oo ku saabsanaa in dalku gal loo diiday macallimiin masaare ah oo wax ka dhigay qaar ka mid ah iskuulada deegaanada Puntland wararkan ayaa waxa la socday sawiro screenshot ah oo muujinaya wax lagu sheegay inuu yahay website-ka hay'adda socdaalka oo ay ka muuqato diidmada fiisaha macallimiinta masaarida kuwaas oo wax ka dhigay iskuulo ku kala yaala Qardho Gaalkacyo iyo sidoo kale Burtinle hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya waxay si cad u beeninaysaa wararka la soo dhigay qaar ka mid ah baraha bulshada ee sheegaya in macallimiintaasi loo diiday inay galaan dalka ama ay joogaan sidoo kale hay'addu waxay cadeynaysaa in xogta iyo sawirada la baahiyay ay yihiin kuwa been abuur ah oo isla markaana aan lahayn wax sal yiraahda lama yaqaan cidda faafisay wararkan oo aad u qabsaday baraha bulshada hase yeeshee maamulka Puntland wax eedayn ah oo ku saabsan fiisa la diiday uma uusan soo jeedin dawladda dhexe ee federaalka dawladda Soomaaliya iyo Puntland ayaa hore waxa u dhexmaray khilaaf la xiriira dhinaca waxbarashada iyadoo Puntland mar ay dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay inay shahaado u diiday arday reer Puntland ah oo u socday jaamacado ku yaala dalka dibadiisa
sida uu qoray wargeyska Daily Nation ciidamada militariga Kenya ayaa la wareegay amniga madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo hadda ku sugan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. wargeyska oo soo xiganaya sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada difaaca dowladda Kenya ayaa sheegay in wafdiga uu hogaaminayay Sayid Aadan la dejiyay hotel ku yaala magaalada Mandera isla markaana ay la wareegeen amnigiisa sida uu hadalka u dhigay. sarkaalka oo la hadlay Daily Nation ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka Itoobiya ay u diideen madaxweyne ku-xigeenka inuu gudaha u galo magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo. sarkaalkan oo ka gaabsaday inuu faahfaahintaasi dheer bixiyo isagoona sheegay in xukuumadda Nairobi looga baahan yahay inay ka jawaabto arrintaasi. xaaladda gobolka Gedo ayaa muddooyinkii dambe ahayd mid kacsan kadib markii maamulada degmooyinka Balad Xaawo, Luuq iyo Doolow ay shaaciyeen inay ku biireen dowladda federaalka Soomaaliya oo ay la wareegtay deegaano ku yaala gobolka Gedo. lama oga sida ay noqon doonto xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa militari ee u dhaxeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya oo laga dareemayo gobolkaasi Gedo. si kastaba ha ahaatee arrimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo ku sugan yahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya halkaas oo uu ka wado dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan xaaladda gobolka Gedo. goor daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay roobabkii 48 saac ee la soo dhaafay ka daay Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan oo waxyeello u geystay dad barakacyaal balse markaan gudoomiyaha deegaanka Garisbaale Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare ayaa maanta waxa uu kormeer guud oo qiimeyn ah ku sameeyay barakacyaasha ku nool Garisbaale oo saameyn xoog leh oo ku yeeshay roobabkii daay. kormeerkan oo qaatay saacado badan ayaa waxaa qayb ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Cabdullaahi Cabdi Maxamuud, xogayaha Garisbaale Cabdiraxiin Cabdullaahi Liibaan, gudoomiye Garyare iyo xubno kale ayaa inta ay kormeerka ku jireen waxa ay goobaha caafimaadka u direen dhowr qof oo roobka qabowgiisu uu saameyn ku yeeshay waxaana ku jiray haween jilicsan iyo ilmo yar. gudoomiyaha Garisbaale ayaa sheegay dhibaatada dadkan haysata inay ka sii dari karto maadaama la filayo in saacadaha soo socda ay yimaadaan roobab mahiigaan ah. waxa uuna dowladda federaalka maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha deeqaha bixiye ka dalbaday inay dadkan ka soo caawiyaan si ay u helaan adeegyada la xiriira nolosha aasaasiga. Garisbaale oo martigelisay barakacyaasha ugu badan ee ku nool Muqdisho ayaan ilaa hadda lala soo gaarin wax gargaara tan iyo markii ay bilowdeen roobabka oo maalmihii ugu dambeeyay ahaa kuwa si joogto ah uga da'ay guud ahaan dalka gaar ahaan Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan. xogayihii joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu xilkii xogaynimo ku wareejiyay kadib markii golaha wasiiradu ay baabiyeen booska xogayaha joogtada ee wasaaradda xukuumadda loona qaatay nidaamka agaasimaha guud. xogayihii joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Mudane Cabdullaahi Maxamuud Xasan Nasari ayaa waxa uu munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday gudaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha u mahadceliyay shaqaalihii wasaaradda isagoo sheegay inay kaalin weyn kaga jiraan hawlaha ay bulshadu u hayso wasaaradda. sidoo kale xogayaha ayaa waxa uu ka warbixiyay shaqada uu qabtay muddadii uu hayay xilka xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maantay si sharaf leh oo wanaagsan macnaha qaranka oo macnaha sida uu awaamirtiisu ay tahay anoo fulinayo macnaha awaamirta qaranka ayaan waxaan ku wareejiyay wasaaradda. runtii muddadii aan joogo waxaan aad ugu faraxsanahay aad ugu mahadcelinayaa marka ugu horeysay wasiirka wasaaradda Mudane Cabdi Maxamed Sabriye, wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha iyo wasiiradii ka horeeyay oo la soo shaqeeyaba iyo shaqaalihii kala duwanaay muddadii aan joogo aan soo wada shaqeynay. runtii markii macnaha maxaan ku raahdaa la fiiriyo shaqada ballaaran oo qaranka Soomaaliyeed macnaha maxaan ku raahdaa uu hiigsanayo kuwooda ugu waaweyn oo la gaaray muddadii aan joogay waxaa ka mid ah dib u eegista ansixinta sharciga dowladaha hoose 116 oo maaragtay maxaan ku raahdaa golaha wasiirada la marsiiyay muddadii aan joogay. waxaa ka mid ah siyaasadda qaran ee kubcinta aqoonta macnaha maxaan ku raahdaa dowladaha hoose. sharciga doorashooyinka ayaa ka mid ah oo hadda baarlamaanka yaallo. waxaa ka mid ah hanaanka dhab u heshiisiinta qaran oo isaguna maaragtay maxaan ku raahdaa golaha wasiirada maray. waxaa ka mid ah siyaasadda qaran ee barakacayaasha qaxootiga oo isaguna sidoo kale maray iyo siyaasadda aqoonsiga dowladaha hoose. waa milestone-ada macnaha maxaan ku raahdaa muddadii aan joogay wasaaraddu ay gaartay. runtii waxaan u mahadcelinayaa
khubarada wasaaradda iyo agaasimayaasha wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo intii gacan nagu siisay. guud ahaan daawadayaal wararkii xilligan aan idiin soo gudbinaynay waa nageynta. haddii aad ku cusub tahay janaalkeena fadlan subscribe saar, like dhasiina share gare, noqona qofka ugu horeeya hela wararka xogaha iyo warbixinada halkan aan idinku soo gudbino.